Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Tech Somali. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso video ku saabsan sida aad PUBG Mobile ugu shuba lahayd kombiyuutarkaaga ama laptopkaaga. Hadda ayaana bilaabaynaa. Ugu horreyn waxaad tegaysaa dhanka Google, waxaa ku qoraysaa Game Loop. Kabacdi waxaa kuu keenayaa website-kan ay ku qoran tahay gameloop.fun. Kaas ayaad dooranaysaa. Meeshan ayuu haddana ku keenayaa markuu meeshan ku keeno download ayaa leedahay kombiyuutarka oo ku shubay open ayaan leeyahay oo aad u jeedaan yes ayaan leeyahay wax yar oo waxaan sugayaa sakama ah kabacdi wuu soo kacayaa qayb seconds ku soconaysa iyo qaybtan meeshan markaan taagana automatic ayuu ka wadaa hoos 75 ayay maraysaa waxaanu laga baahan yahay xoogaa kaliya ayaa sugaysaa kabacdi markuu dhameeyo gameka ayuu automatic u soo kicinayaa waxaan games badan waaye oo meeshan game loopka laga dheelo emulator ahaan u dheelaysaa markaan gamekan dheelayso haddii aad asxaabtaada friendskaaga la dheelayso waa gooni laakiin haddii aadan la dheelayn waxaa 90% kugu soo aadayo dad adigoo kale oo kombiyuutarka dheelayo oo aad isku awoodtihiin marka hadda ayaanan gelaynaa qaybteeni waad u jeedaan qaybta labaad ayaa hadda soo kacday sugitaankanna waxay ku xiran tahay internetka aad haysato iyo kombiyuutarkaaga awoodiisa labadaas haddii isku tagaan waa in ka yar 2 daqiiqo 3 daqiiqo ayay kugu qaadanaysaa hadhow markuu qaybtan dhameeyo setting yar ayaan sameynaynaa waad u jeedaan automatic ayuu soo kacay haddii ay kombiyuutarkaaga awoodiisa yar tahay $720 laakiin anigan ayaan dooranaa lacala haddii oo kan kaliis kugu dhaafo cancel ayaa iska leedahay qaybtanna close ayaa iska leedahay waa iska xiraysaa wax micno ma laha meeshan ay ku qoran tahay setting qaybtaas ayaa ku dhufanaysaa wuxuu ku keenayaa meeshan markuu meeshan ku keeno si aan ula socono waxaan rabaa inaa idin kalarka si aan ula socotaan waxaan mashquulka ayaa idinka yareeyay meeshan basic settings waay kaliya waxaa leedahay adiga engine-kana tegaysaa qaybtan sidan aad matalan oo kaleeto memory-gan oo kale waxay ku xiran tahay kombiyuutarkaaga midka ku xiran aniga waxaa ku xiran 16 GB marka waxaan leeyahay 8 kamid ah ayaan isticmaalayaa shaashadan waxaan u baahanaan leeyahay aniga 1080 u baahanaan leeyahay meeshan oo DPI-giisana waxaan rabaa inaan kordhiyo 240 aan ka dhiganaa meeshan waxaa waaye hadda dhega oo bluetooth ayaa igu xirno soo qabtay kuwan ayaan ku isticmaalayaa microphone-kana kan ayay u iyaan doortay kaliya wax kale ma sameynayo meeshan hoos ay ku qoran tahay waa ujeedaan haddii meesha ay ka xirmataa ku dhahay haddii oo gameka kombiyuutarkaaga haddii ay kombiyuutarkaaga awoodiisa yar tahay kan koro dooro haddii aad kombiyuutar xoog badan leedahay sidaa hore ugu sheegay kan ayaa dooranaysaa aniga marka kan ayaan doortaa mar walbo meeshan waxaan ka dhigtaa display quality outwan ani waa ka dhigi kartaa laakiin ani smooth ayaan ka dhigtaa safe ayaan leeyahay marka restart ayuu isku dirayaa kaliya kabacdi markuu restart isku diro gameka ayaa sidan soo kacaya qaybtan waa iska xiraynaa marka mar walba oo gameka soo kacaya shaashad kale ayuu ka soo kacaya kombiyuutarkayga marka waa idin soo jiidaya haddana waa keenaya waa kana waad u jeedaan gameka hadda ayaan galnay wax walba sida loogu baahnay ayay u set up garaysan yihiin xoogaa yar ayaan sugaynaa oo keliya oo Facebook ayuu keenay iyo marka aniga dadka markay saan yihiin laba nooc ayay ku galan haddii aad maxay ahayd akoon gmail dheelaysa kan ayaad jagsiinaysaa kabacdi app kale ayuu kuu keenayaa laakiin aniga Facebook ayaan ku isticmaalaa marka Facebookiga ayaan okay leeyahay waxaan wuxuu ku leeyahay agreementiga waa privacy and policy-ga kabacdi meeshan ayuu i keenay ciwaanka aan ku isticmaalo ayaan gelayaa login ayaan leeyahay waad u jeedaan wuxuu rabaa code marka haddii aan mobilkaaga inaa facebookkaaga securitykiisa ku xirato way fiican tahay sababtoo wuxuu ku keenayaa inaa mobilka yes ka soo dhahda ayuu u baahan yahay hadda mobilkan galay yes ayaan soo dhahay kabacdi intuu i keenay continue ayaan leeyahay gameka ayaan hadda gelaynaa hadda waqtul xaadirkan qaybtii ku shubista kombiyuutarka installationku waa soo dhameynay waxaan gelaynaa qayb yar oo saxida haddana wuxuu u socdaa
wejiga hore ee gameka. Waa kana oo soo kacay digniintan ayaan ugu siinayaa oo ah maadaama aad kombiyuutarka dheelayso waxa kugu soo aadayo dad kombiyuutarka dheelaya sida adigoo kale. Marka waa intaas okay ayaan leenahay. Meeshan ayaa keliya kuma sii dheeraanayno, waxaan gelaynaa settingka ugu muhiimsan. meeshan waxaa waaye basiga. meeshan waxaan keliya muhiimadda inta ayaan dooranaynaa. aniga meeshan wuxuu ii yahay mix. haddii aad akhriso ayaad arkaysaa qaybtan kaleeto ee ah muhiimadda ah waxaa waaye peak and fire lahayo. qaybtaas oo hadhow ayaa idin tusaya waa soconaysaa. qaybta enable ayaa leedahay, waxyaabo yaryar ayuu kuu sheegayaa marka meeshaan marayso. maadaama kombiyuutarka dheelaysa shaashadda aniga waxaan ka dhigtaa 100. marka meeshaan ay ku qoran tahay pickup scope-kane qaybtaas enable ayaa leedahay keliya. inta ugu muhiimsan waa intaas. qaybta kale waxay u baahan tahay in laga saxo ciyaarta dhexdeeda. marka waan fiirinayna waxaan kale meeshan graphicskan aniga sidaan u isticmaalay HD. meeshan inta waxaan ka dhigtaa extreme, meeshan smooth ayaan ka dhigaa. qaybtan meeshan waxaan ka dhigtaa smooth, qaybtan extreme ayaan ka dhigaa. meeshan qaybtan ay ku qoran tahay waxaan doortaa realistic, kaas ayaan doortaa okay ayaan dhahaa. meeshan basic waan saxnay. waxaan gelaynaa ciyaarta si aan qoryaha iyo waxyaabahaas haddan u saxno. waxaan leenahay maabka inaad soo download garaysaa lagaaga rabaa, laakiin ani start ayaan dhahayaa gameka trainingkiisa. gameka meeshan ayuu imaaday. markuu hadda meeshan taagan yahay waxaan sameynaynaa qoryo ayaan soo qaadanaynaa si aan waxyaabahaas u saxano keliya. asaa automatic gameka u fadhiya. hadda waxaan leeyahay si aan qoryaha labada qoray mar walba badanaa oo ayaan qaadanaynaa iyo xabadahooda yar xoogaa ah. boorsadana waa qaadanaynaa. meeshan labadan qasnad oo extendedka u baahan tahay, kanna waxaa ugu baahan tahay kaas iyo kan. qaybtan waxaa u baahan tahay qoriga gadaal ugu xirmaya bes. waa ka tegaynaa inta waxaa qaadanaynaa xabada. marka skoobyada ugu yaryar oo number 1 ka qaadanayna si aan u saxno. hadda gameka haddii aad kala qalbiyo scope wax yar oo dhaqdhaqaaqaya oo keliya. waxaan u baahannahay inaan saxno kaamiradiisaan saxayna marka ugu horeeya gameka. sensitivity-ga ayaa tegaysaa. kaamirada ugu horeysa meeshan waxay tahay aniga aad ayaan u yareeyey sababtoo waxaan diidanahay kombiyuutarka dhow markaa muuska isticmaalayso aad u orordayaa. keliya qaybtan kale ay ku qoran tahay camera nambaradaas hadhow adi stop dhaho ka fiirso. qaybtan camera ay ku qoran tahay first one qofku waxaa 30 ayuu ahay, laakiin aniga 18 meelahaasaa ka dhiganaa. kanne first person anima isticmaali. labadaas markaad dooratid keliya wuxuu u baahan yahay inaad waxyaabahan ay ku qoran tahay red dot kan oo kaleeto 16 ayaan ka dhigayaa si aan saxidiisa saxda u fariisino. hal mar ayaan saf ka wada maraynaa si aan u aragno. qaybtan kale ay ku qoran tahay first meeshan asigana waxaan ka dhigayaa 46 ayaan ka dhigayaa ilaa 35 intuu dhexeyso. 2x kan waxaan ka dhiganaa 18. hadhow ayaa arkaysin hal mar qoryaha dhan safaan ka wada maraynaa markay wada fariistaan. kanna waxaan ka dhiganaa asna sidoo kale 18. mar walba kanna qaybta waxay ku xiran tahay muuska isticmaalaysa haddii iyo geemiyaha aad ugu fiicnaanaysa. marka waxaan u gudbaynaa qaybta ay ku qoran tahay kaamirada markay meeshan taagan tahay 8x kan oo kaleeto 5 ama 4 ka dhiganaysaa waa test garaynaysaa. qaybtan ay ku qoran tahay 6x kan waxaan ka dhiganaynaa 14. kan ka koreeya 3x ka waxaa ka dhiganaynaa 16. red dot kan kay ku qoran tahay 16. hadda waxaan saxnay qaybta koowaad ee kaamirada sensitivity qaybta ugu muhiimsan waa hadda inaad la socotid. waa kana waxaa lagu dhahay no scope-kaas maxaa ka dhiganaysaa lagu dhahay 30 ayaan ka dhiganaa aniga. way waxay ku xiran tahay muuskaaga si uu speedku u yaraado marka aqlaacla qof la dagaalayso kale ay ku xiran tahay. qaybtan labaad iidane sidoo kale 35 ayaan ka dhiganaa. red dot kan waxaan ka dhigaa 38. 3x waxaan ka dhigaa 23. waan fiirinaynaa kan waxaan ka dhigaynaa 27.
haddana qaybtan ayaan soo gudbaynaa first person ka ayaan saxnay oo 35 aan ka dhigay 2x kan waxaan ka dhigaynaa 30 4x kan waxaan ka dhigaynaa 29 8x kan wuxuu noo taagan yahay 8 sidaas ayaan ku dhaafaynaa waxaa noo haray qaybtan lahay gyroscope-ka hoos waa kan ugu horeeya 300 ayaa ka dhigaysaa kan labaad 180 ayaa ka dhigaynaa meelahaas ilaa meelahaas 180 oo kale kan ka hooseeyo waxaan ka dhigaynaa 3x ka waxaan ka dhigaynaa adiga 70 ilaa 67 inta u dhaxayso 68 ama okay waaye 6x kan waxaan ka dhigaynaa 60 ama 70 inta u dhaxayso kan ku xigo 28 aan ka dhigaynaa ilaa 27 ina meelahaas 4x kan waxaan ka dhigaynaa 190 aniga setupkan meel igu save gareysan yahay maadaama saas darteed ayaan 2x kan waxaan ka dhigaynaa 80 okay hadda marka aan tijaabino qorigan aan wada fiiriyo meesha scope hadda marka dhaqaaqaya oo ujeedaa marka meeshaas marayso waxaa jiro aniga maxaa la dhahaa wax aan isticmaalo oo ah halkan oo idin share gareynaa waxaa waaye waxa la dhahaa red edit oo computerka maxaa la dhahaa setup laga sameeyay dhanka muuska ah haddii aan test gareyno hadda matalan kan oo kale aniga special zaid ayuu igu saxayaa marka muuska kan aan setupkan doorto okay la leedahay bis shaashada asaaba automatic aga baxaya kabacdi gameka ayaan u noqonayna fiiri waxa dhacaya fiiri qoriga meeshaas qof ayaa hadda wado meeshaan fiiri waxa iska bedel fiiri qoriga kala dhaqaaqaya wax yaro micno leeno dhaqaaqa kabacdi waxaa jiro qoriga marka meel laga saxo oo special ah haddii oo qoriga micnaha labadaada gacmood xaggooda bidix iyo midig hadduu u dhaqaaqayo kaamirada ayaa sixid kaa rabta haddii oo kor iyo hoos u dhaqaaqayana qaybta sensitivity ayaa wax laga bedelaa marka hadda aniga hadda tusaale ahaan oo kale meeshaan hadda gamekan fiiriya qoriga marka meesha centerka ku aadiyo meesha u dhaqaaqaysa fiiriya kor ayuu u dhaqaaqayaa kor maadaama uu dhaqaaqayo waxaa noolaga baahan yahay sensitivity inaad saxdid marka mobile xataa ka dheelayso qaacidadan waa isticmaali kartaa red dotka ayaa isticmaalaya aniga hadda waxaan ka dhigaynaa 45 inaan kordhin maadaama kor iyo hoos u socdo hadda fiiriya wuxuu noqday dhanka geesaha ayuu u dhaqaaqa markuu geesaha u dhaqaaqo waxaa imaanaysaa haddana kaamirada meeshan kaamirada ayaa waxaa ka dhigaysaa 25 camal marba time ayay u baahan tahay kan dheedheelkuma saxmo haddii saxidiisa u baahan tahay time ayay kaa qaadanaysaa qof ayaa i dhibaya oo meeshaan taga iga daba tegaya hadda marka kan ayaa imaanayna waa ujeedaan wax yar oo 2 ilaa 3 oo wuxuu u baahan yahay inaan ku daro dhanka sensitivity-ga content ayaan ka dhigayaa marka ayaan u buuxiyaa waxa dhacay fiir qoriga kaa dhaqaaqaya fiir marka waxaa ujeedaa wax yar oo geesaha inuu dhaqaaqayo marka meeshaas dhaqaaqaas waxaa laga saxaa qaybtan ay ku qoran tahay sensitivity-ga markaad joogto meesha ugu hooseysa ay ku qoran tahay gyroscope ka anaga saxayna waxaa waaye red dotkan maadaama waxaa test garaynaynaa iyo 90 aan ka dhigaynaa ilaa 200 aan ka dhigaynaa maadaama iyo 80 noo ah haday wax isbedel ayaan ka fiirinaa ilaa 4 xaba ayaan ka dhigaynaa 94 aan ka dhigay qoriga isbedel hadda ayuu sidaas ayaa hadda ku saxatay kaliya hal mar oo waxaa jira kaamirada ayaan waxaan ku darayaa ilaa 30 ayaan ka dhigayaa marka waxaan fiirinaynaa quality-ga sidoo isku bedelayo qoriga dhaqaaqa badnaa wuu sii yareeyay aniga kaliya saxitaan kaliya muu isticmaalo waxaan kaloo isticmaalaa waxa la dhahayo adiga registry oo dhanka computerka ku jiro oo wax laga bedelayo muuska habka u shaqeeya ah marba marka dambayso ku saxmaa
qoriga hadda waa ujeedaa waa kama fariisise marka waxaan u bad fiirinaynaa red dotka asigana fiirinaynaa qoriga wax yar uu dhaqaaqaa marka hadda kor maadaama uu dhaqaaqaayo hore balanteen waxay ahayd haddii oo qoriga kor u dhaqaaqaayo dhanka sensitivity-ga waa marka 60 ayaan ka dhigay maadaama qoriga kor u dhaqaaqaayo kor hadduu saas qoriga u shaqeynayo sensitivity-ga waa dhinacan hadduu yahayna kaamirada waa markaas xiisid labadaas qaacida ayaa la isticmaalaa mobilka data kan kor ayuu sii aaday markaa meeshan taagan tahay waxaa fiirinaya keliya marba dhinaca test garaynaysa time ayay kaaga baahan tahay 160 ayaan waxaan ka dhigayaa haddana gyroscope hadda ayaa markaa keenaa wixii aan sameeyay okay 160 meeshii haddan ka dhigna 140 haddana ka dhigaynaa meeshaan 140 okay qoriga sidaas ayuu hadda u fariisanayaa marka inuu kaa dhaqaaqo way yaraanaysaa marka mar walbo dhanka kaamirada iska sax keliya intaasoo keliya wax kale ma u baahno markaa wax saxaysid inaad dhanka kaamirada le mar walba saxda lagaa rabaa mar walba waad test garaynaysaa meesha ugu fiican markaas ayuu noqonayaa intaasoo keliya qoriga dhaqaaqa hadda fiir wuu badiyey maadaama uu badiyey waxaa tegaynaa marka sensitivity-ga u noqonaynaa haddana meeshaan 60 oo ka yahay kor ayaan u qaadaynaa ilaa 68 aan ka dhigaysaa waxaa la fiiriyaa mar walba hal dhinac lagama test qoriga fiiraa maadaama oo dhaqdhaqaaqi yareeyey kaamirada oo qaybtan hore meesheedu u celinaynaa 32 ayaan ka dhigaynaa marka fiirsa hadda waxay dhacay kor ayuu sii aaday kan maadaama oo kor sii aadayo waxaa leedahay maadaama oo kor aadayo ilaa waxaa keenaynaa markaan 20 aan ka dhigaynaa sababtoo ah haddaay markaan wax ka bedelna zaa'id oo noqday hadda arkaynaa okay sensitivity-gana waa saxnay dhanka kaamiradana waa saxnay marka cilada keliya waxay kaa noqon kartaa meeshaan ay ku qoran tahay marka qaybtan ayaan soo kordhinaynaa oo ilaa 70 aan keenaynaa mar walbo gameka wuxuu ku shaqeeyaa marka wax sidaysa numbers ku shaqeeyaa fiirada dhaxda ayuu iskugu imaaday iyo kaamirada marka keliya waxaa meeshan hadda ugu dambeysa anoo wax kala samayn 5 ayaa inta ku dareeyaa automatic oo hadda u saxmaa qoriga marka marka qofka markaa liifaysid intaas ma ka dhex bixi karo xabadaha 73 aan leeyahay 5 number soo dhaqaaq waa intaasoo keliya kan hadda sidaas ayaa ku saxday kii kale haddaan u bedelano ee hore waa kana asigana fiire waa qofka bokiska ma ka dhex baxaya markaa wax baranaysid okay waxaan test garaynaynaa 2x-ka 4x-ka iyo 6x-ka inta waa tijaabinaynaa hadda matalan 2x-kan qofka madaxiisa ma dhaafayo automatic uu igu saxan yahay numberska waxaan fiirinaynaa 3x-ka fiirinaynaa qofka madaxiisa oo gameka wax yar ayuu dhaqaaqayaa markuu meeshaas oo dhinacaha u boodboodayo keliya waxaan sameynaynaa intaa 20 ka dhiganaa wax kalena waan ku darin haddana 4x-ka ayaan fiirinaynaa 4x-ka waa kaasigana meesha fiira qofka madaxa inuuna ka bixina loogu talagalay haddana waxaan fiirinaynaa 6x-ka wax yar ayuu dhaqaaqayaa marka 6x-ka markuu saan yahay waxaa la sameeyaa 6x-ka markuu saan yahay meeshan oo ayaa hoos laga soo dhigtaa fiirso waxa dhacaya marka
maadaama oo kii hore si fiican u soconaa kan fiiri. qof hadduu ahaan lahay meeshaas oo wax badan oo isbeddel weyn ma kaaga dhacayo. meeshaan ilaa shantooyan ku daraa si oo waxaas wax yar ay u fariistaan. Waa u jeedaa fiiri. qoryaha saas aan u sameeyaa. mid walba midka kale saas aan u sameeyaa. habka aa u sixi lahayd baasigiisa waa idin tusay, waxyaabaha kaleeta adigaa dhamaystiranaya. hadda hal mid ayaa muhiim ah, waayo matalan haddii aan idin calaamaday meeshan ay ku qoran tahay sida qoryaha loo kala bedeshto oo scope loo kala bedeshto computerka markaad dheelaysid shortcut ma laha. marka waxaan sameeyey maadaama oon shortcut lahayn, laakiin hab kale oo loo samaysan kara ayaa jiro. inta dhinacaana u soo durjiyey qaybtan si aan u aragtiin. meeshan ay ku qoran tahay calaamadaasaan taabanaa, keyboard ayaan dooranayaa. markuu arkaysaa meeshan calaamadan hadda kanoo kale waa tirayaa si aa u fahantiin. click ayaa leedahay u aan ka dhigtay. u haddaa taabto inuu scope automatic ugu bedelma ayaa safe aan ka dhigtay. waa garateen. qaybtan kaleeto oo waxaa lagu soo diray asigana sug si aan safe u dhaho. safe ayaan leeyahay. waxaa soo hartay meeshan ay ku qoran tahay main meeshaas ay ku qoran tahay anaa keyboardkaasna ka bedelay. haddaa fiirisid fiiriya caps loga ka dhiga. marka caps loga oo farta meesha laga weynaaya taabatid scope labaad oo automatic u noqonaya. scope labaad aan ka hadlayna waa kana. fiirso hadda markii saan aan dhaho 6 waa marka caps loga taabto fiiri kan side scope kaasoo noqonaya. waa ujeedaan intaasoo keliya waa kasoo noqonaya. kan hadda fiiri meeshaas fiiri qof dheer ilaa intaas ku fiiri. marka adaa marka ku ciyaari karo marba meel ka bedel fiiri. waxaa xifdisnataa keliya haddii uu qoriga saan kor iyo hoos kaaga dhaqaaqo ad sensitivityga saxaysaa. hadduu dhinacan oo sidan oo qoriga ka xabadeen saas xabada u ridaya dhinacahaas ee uu kala dhaqaaqayo asigana kaamirada iska kaxaysa. labadaas haddii aa xifdisid oo mobilna aa ka dheelaysid waxa dhan automatic ayaa u saxaysaa. kanna meeshan ayuu ku dhammaaday. videogan inta ayaa kusoo gabagabeynaya. haddii aad videogan ka heshay please subscribe channelkeena dheh marka ugu horeysa haddii ay tahay. waxaan kaloo kaa codsanayaa adigana inaad share garaysid insha allahu tacaala. dhanka mobilka sida loo saxano videoga xiga ayaan kasoo dhigaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.